السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع بهدي إلى يوم الدين. أما بعد. walaalyaal waxaan jeclahay maanta inaan idin la wadaago kelmad aan ugu talagalay inay u noqoto bilowgii kalimaad oo runtii aan jeclahay inaan idinla wadaago. maxaa yeelay waxaa dhacday dhowr jeer anigoo jooga meesha aan deganahay iyo online-ka dadka aan saaxiibada ku nahayba inay soo weydiiyaan su-aalo ku saabsan mawduuca ama maxaa la dhihi jiray xirfadda marka aniga aan ku shaqeeyo oo si gaar ah si gooni ah iyo qaar badanna ay iga codsadeen inaan maxaa la dhihi jiray aan wadankii iyo dadkii dhismihii dib u dhiskii wadanka caafimaadkiisa in aan qayb ka qaato at least seminar meel aan ka jeeday wax noocaas oo kale ah runtii talooyin la wada baahan yahay oo qaarkood ay ugu yiraahdeen samarka ma noo timaadid. runtii waa jeclaan lahaa samar iyo markastaba inaan idinla joogo marka waxaan isiri haddii aad adigoo gurigaaga jooga aad wax ka caawini karaysa waxaan isku dayay in aan webinars oo online seminars ah haddii aan samayn karayo taasoo dhici karaysa maadaama aan waqtiga u kala duwannahay oo anigu aan maalin ku jiro idinna markaa saacadahaas oo kale aad ku jirtaan habeen. waxaa keliya oo ifran markaa waxay tahay inaan video duubo oo aan markaa aan upload gareeyo oo qofkii ilaahay u haleeshiyo oo marka ay macno sameeyaan ama ay tiro noqdaan oo runtii aan dadka la wadaago marka channelkaasi ciddii doonaysa marka ay ka faa'iido marka taana waa ra'yi marka ay ugu soo dhashay. tallaabada maantaan qaadayo waxay tahay horta marka ugu horeysa waxaan ka hadlayaa muhiimadda caafimaadka uu u leeyahay islaamka. maxaa yeelay kelmadda aan ku furtay ee ahayd الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. waxay marqaato u tahay in aanu ilaahay ku mahadino markasta iimaanka uu inoo sahlay iimaanka uu inagu hanuuniyey iyo in aynu noqono dad isagii aamina oo rasuulkii uu soo diray raaca oo sidaa muslim ku noqda. marka cidina ma awoodeen in ay maxaa la dhihi jiray iskeed ay isu hanuuniso. maxaa yeelay nabigeena calayhi salaatu salaam markuu jeclaystay in adeerkiisa oo dadka ugu dhowaa uu la jeclaaday inuu islaamo oo loo sheego waxaa la yidhi adigu ma hanuunin kartid qofkaad doonaysid innagaa hanuunka iska leh ciddaan doonana innagaa siinayna. marka annagoo taa og ayaa runtii waxaan jeclahay waxa aynu haysanno ee nimcada ah nimcooyinka alla subxaana wa tacaala ina siiya waxaa number 1 u ah waxay tahay waa iimaanka. mar haddii iimaanka ay number 1 u tahay oo alla subxaana wa tacaala taa ina siiyey oo haddaynu nahay dadka ayaan ka hadlayaa oo qofkii aan islaam ahayn oo aan weli iimaanka helinna ilaah baan ugu baryaynaa inuu hanuunka tuso oo markaasi uu u dhaxlo wanaagga ama nimcooyinka alla subxaana wa tacaala uuna siiyey taa ugu sarraysa. taa ka sokow nimcooyinka xiga ee alla subxaana wa tacaala number 2 midda uu nooga dhiga waxa weeyaan waa caafimaadka. caafimaadku waxay dhacaysaa waa darajada labaad oo nimcooyinka alla subxaana wa tacaala ina siiyey waxaa number 2 u ah caafimaadka. oo qofka caafimaadka marka uu helo alla subxaana wa tacaala uu siiyo fayoobid iyo badqabid caafimaad qabid oo xagga jirka ah iyo xagga maskaxdaba ah alxamdulilah qofkaasi wuxuu awood u helayaa inuu rabbiga abuurtana u caabudo adduunkanna ugu noolaado oo istiqlaaf iyo isticmaar uu sameeyo oo uu dego oo khaliifo uu u noqdo oo uu camiro ku noolaado ku guursado dego reer ku yeesho oo adduunka u camiro. maxaa yeelay qofka haddaanu caafimaad haysan oo qofka caafimaadka haddaanu haysan maxaa yeelay caafimaadku waxa weeyaan waa kaalin wuxuu qayb ka qaadanaya xitaa islaamnimada. maxaa yeelay marka hore qofku waxaa shuruudaha ka mid ah qofka muslimka ah inuu qof yahay qof fayow oo aan waalayn taasoo imaanaysa marka xagga caafimaadka maskaxda. qofka markuu caafimaad qabo maskaxiyan uu caafimaad qabo oo jir ahaan uu caafimaad qabo
waxa weeyaan nimco alla subxaana wa tacaala qofka uu ka maqanay ma jirto. dad badan baa ka hadlay inuu khinaayada la sheegaya dhanba ay caafimaadka tahay. gaaladii xataa ka hadasha buddha ninka ay yidhaahdaan maxaan ku dhaha buddhismka aabbaha u ah maruu ka hadlayay isaga xitaa waxaa laga wariyay inuu yidhi haddayba qinaayo jirto wealthiga la sheegayo waa caafimaadka. qofka haddaanu caafimaad haysan waxa weeyaan wealth maba jiraysaba. weli waxaan kaloo kuusii sheegayaa tusaalooyin badan oo aan jeclahay in wealthi ama maxaa la dhihi jiray qaninimo ama hodantinimo ama maal aanu macnaba samaynan haddaan caafimaadba jirin. maxaa yeele caafimaadku waa hadiyad la isa siiyo ta ugu sarreysa. marka caafimaadka dhooristiisa iyo ogaashihiisa iyo ka warhayntiisa ayaa runtii muhiimad gaara leh. taa weeyaata aan doonaya in aan runtii aan inta anigu karaankayga ah inta ila gudboonaata aan jeclay dadkayga inaan la wadaago. waxaan ku xijinayaayoo kale runtii mar hadduu caafimaadka aan isku raacnay inuu yahay qaninimata ugu sarreysa oo lacag iyo hanti dahab iyo doolar aysan waxba kuu gedi karayn oo caafimaadka dheg ku xanuunta aysan baa kuu soo celin karayn. tusaale yar baan ku siinayaa meesha aan deganahay iyo meel kasta oo ay joogaan milyaneero bilyaneero oo hanti hadday noqoto guryo, hadday noqoto kambaniyo, hadday noqoto stadiums iyo garoomo leh. bilyaneer waxaa jiray agtayada oo caan ah oo la yaqaano Paul Allen la yidhaahdo. wuxuu leeyahay garoomo waaweyn, tiimam waaweyn oo koob qaada. waa nin kale Seahawks. wuxuu leeyahay Portland Trail Blazers. wuxuu leeyahay maxaa la dhihi jiray hanti aan la soo koobi karin. xanuun yar baa u yimid oo kollay annagu waxay nagu ahayd wax lama filaan oo deg deg ah, laakiin dhici karaysa inuu muddo usoo xanuunsanayay. mar waxaynu maqalnay inuu kusoo bood ahaa oo pancreatic cancer u ahaa, marna lymphoma maxaan ku rahaa Hodgkin cancer ay yidhaahdaan oo non lymphoma ah ayuu ahaa. waxay ahaataba almuhima ninkaasi balaayiinta dollar uu leeyahay wuxuu ka mid yahay 10 qof ee caalamka ugu lacagta badan buu ku jiraa. ninkaasoo kale marka uu noloshu ay qalqarad halka ay usoo gaarto haddii hantidiisu uu dhaafsan karo uu dhaafsan lahaa. marka caafimaadku waa waxaan la soo koobi karayn oo u baahan runtii in lagu fara adeego. marka arrintaas weeyaan arrinta runtii aan jeclahay in aan maalmo badan aan ka hadlo anoo ka hadlaya intaan ka ogahay nidaamkii caafimaad ee waddankayga soo maray, intii khalaasuhii iyo dagaalada sokeeye ay jireen siday wax ahaayeen, iyo hadda xaalku waxa meesha uu marayo, si aan wax ugu daro dadka dhalinyarada ay hadda iskuulada ku jirta wixii marka aan ku kordhin karo anoo ka fog. marka waxaan kaloo ku darayaa oo nabigeena calayhi salaatu salaam inoo sheegay caafimaadku wuxuu ka mid yahay laba nimco Allah subxaanahu wa ta'ala ummadda uu siiyay laakiin dadku aysan bakaba faa'iidin oo mar kastaba aysan ku fara adeegin oo ay dayacaan. waa firaaqada iyo caafimaadka. marka sababaha aan ku dayacno caafimaadkayga maxaa ka mid ah iyo waxyaalo badan oo la mid ah ayaan insha Allah barnaamijkan uga hadli doonaa. inta aqoontayda ah inta aan markaa ila gudboonaata markaas ayaan idinla wadaagi doonaa insha Allah. ilaahna waxaan ka baryaa inuu iiga dhigo ii sahlo i waafajiyo hadalkiisa wanaagsan. wixii xun iga dhacana ilaah baan ka baryaa in uu maxaan ku radaa yareeyo qaladaadkayga. muhiimadda waxay tahay walaal kolle meeluu joogaba ha jooge, gobolkuu jooga ha jooge,